bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kuna soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qodobada ugu doorka roon warka uu idin hayo telefishinkana waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo uu dalka Sacuudiga kula soo qaatay madaxda wadamada ururka iskaashiga Islaamka kadib markii uu maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho الله ونحرسته وحمانته مقالة مقدشة لواصي مرحوم محمود عبد عدو دبري وهاتلي كحجانكي وجانكا سعودالكي جنسيتها الصومالية وشلي مقالة مقدشة لجودلي وحنا أسكي سكقب قلي مسؤولين كترسن دولة الصومالية مناسبة لجو فريس بتالك عيد مدى حوق الدلك الصومالية ودبودس لجو سمية يامانتا لجو قبتي مقالة مقدشة وحنا كقب قلي سراكيل كترسن دولة الصومالية madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu maanta magaalada Garowe uga qayb galay kulan looga hadlayay sida wax looga qaban karo tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed. Wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay dood cilmiyeed looga hadlayay sida bulshada looga wacyigelin karo dhibaatada xagjirnimadu ay leedahay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. dibadbax looga soo horjeeday dilalkii kooxda al-shabaab 48 saac ee la soo dhaafay ka geysteen gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. wararka caalamkana waxa ugu waaweyn daawadayaal in ka badan 400 oo kamid ah shaqaalaha caafimaadka ee daaweynaya dadka uu soo ritay caabuqa Ebola ee dalka Sierra Leone ayaa shaqo joojin sameeyay kadib markii ay sheegeen in dawladdu aysan siinin mushaaraadkii ay u ballan qaaday. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada ugu doorka roon warka uu idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatana waxaad u diyaar garowdaan warkaasi oo dhameystiran.